xaqiiqadii noloshu waa imtixaan waxaana lagu imtixaamayaa cabsida gaajada inaan weyno naf iyo maal alle subxaanahu watacaala waxau doonayaa inuu eego iimaankeennu inuu dhab yahay ilaa xadka sabirkeennu gaarsiisan yahay ilaa intaan adkays leenahay amba aan isdhiibno haddii waswaas yar shaytaan xaggiisa inooga yimaado ogow imtixaan kasta oo alle xaggiisa ka ahaada waa mid khayr noo ah in badan oo inaga mid a waxaynu ognahay in marka iskuulka aan dhiganayno ay tahay inaan marno imtixaan waxaan samaynaa dadaal aad u badan si aan u gudubno imtixaankaas iyadoo haddii aan baasno aan faraxno haddii la dhacana la murugoodo dibna loo noqdo waxaa kaloo la fahansan yahay in waxaana lagu imtixaamayaa aynaan innagu soo xulan oo ay macallimiintu soo xusho marka laynaloo keenana ma jiro arday ka dooda ee waan aqbalnaa waxaan ku dadaalnaa sidii aan uga shaqayn lahayn imtixaankaas haddaba bal ka waran imtixaanka alleh ee adduunka si laynagu kala saaro iyadoon ognahay in imtixaanka noloshu ay ka duwan tahay kan iskuulka waxaa lagu baraa cashar kadibna waxaa lagu siiyaa imtixaan laakiin noloshu saa way ka duwan tahay noloshu waxay ku imtixaantaa kadib ayay cashar ku bartaa imtixaanka noloshu waxaa noqon karaa mid masiibo amba guulaysasho ah waxay ku xiran tahay sidaad wax u qabato guusha ma timaado haddaan loo dhibtoon waxaa la gaaraa dadaal iyo shaqo adag kadib eebbe ha inoo fududeeyo imtixaanka adduun iyo kan aakhiraba alle haynaga yeelo kuwii ku sabraa qadarka kuwii markii ay musiibo ku dhacdo yidhaahda ilaahay baana leh xaggiisa ayaan u noqonaynaa